waxa aan kaaga digayaa inaad imtixaanka ku qabsadaa u aragto inuu kugu daba dheeraaday oo aad u xanaaqdo ama aad furdaaminta rabbiga aragsato oo aad quusato aadna noqoto sida kuwa Ilaahay u caabuda habka labalabaynta iyo tuhunka leh ee haddii ay kala kulmaan waxa ay jecel yihiin oo raaligelinaya kaga raali noqda haddii ay kala kulmaan waxa ay karhayaanna oo dhibsanayaanna ka cadhooda wax waliba waxa ay ku socdaan qadarka Rabbi si xiliyeysan oo xadidan oo aynan inagu waxba ka garanayninna way u socdaan haddii ay wiilashii agoonta ahaa la soo bixi lahaayeen keedkii aabbahooda uu uga dhintay ka hor inta aanay qaangaadhin hantidaasi way ka dayacmi lahayd oo kuma aanay intifaaceen wax kasta oo inaga soo habsaama waxa uu leeyahay sama aynan inagu dhaadaynin adduunkan waa deegaan imtixaan saaxiib ilaahayna qalbigaaga ayuu daalacanayaa oo haddii ay ku haleelaan waxaad neceb tahay ama wixii aad jecleed ay kaa dib dhacaan qalbigaagu marlayba raali ahaansho iyo qaneeco ha lahaado ma jiran wax uu ilaahay ka neceb yahay in uu arko addoonkiisa oo qadarkiisa ka cadhaysan mararka qaar ayay riyooyinka la naawilaa soo daahan saaxiib maadaama aanad weli u bislaanin inaad ilaashato nimcadaasi way kaa soo daahaan maadaama diyaargarowga hagaagsan ee qalbigaagu aan weli dhammaystirmin way kaa soo daahaan maadaama aad weli dembi ku dhex jirto ilaahayna waxa uu kaa doonayaa inaad isaga arrimahaas oo dhan marka hore u hurto si uu isaguna riyadaada aad naawilayso kugu deeqo way soo daahaan maadaama aanad sababihii keensanayay si buuxda uga soo bixin laga yaabaa inaanay weligoodba imaanin maadaama maqnaashiyahoodaas uu khayrka ku jiro ee malaha aad ilaahay ka leedahay wanaaji saaxiib waa walaalkiina Cabdixakiin Axmed oo idinla doonaya guusha labada daarood wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh